أحمد فارح عذرة وزيرك عدالة وقابس سوماليلاند وقيبة كميدا ورفيديانكا كلها دي حرونتا guud ee wasaaradda cadaaladda ku leedahay gudaha Hargeysa ayaa markii ugu horeysay faahfaahin ka bixiyay marxuum ku geeriyooday jeelka Mandera ee gobolka Saaxil isagoona xusay in marxuumku hore u xanuunsanayay waana kan wasiirku arrimaha faahfaahin ka bixinaya dhamaanteen waxaan jecel lahay qofka insaanka Ilaahay soo kalaameeyay ee uu xurmeeyay inaguna u xurmayno ilaalino hase yeeshee إنسانكو وقابلي هابيلو دمعاس وحبوبك وحدعة وحدلك بالودة نفتي سود رانتا نفتي انتو حنصوصا سووا يستلك وضبيعة أي كم تهي نرشها سوى سنة الحياة وسيم مسؤولين نقص هران قرانهان يا الشعب هان يا أهلك محابستوا بقى إلى دريالان اتهالكو من النغضبة مركا هرتم محمد كاسي وحنو سنيي بدبت مرتاح سنيي معناه دون ما هذا يقف عفمات قوي حتى دمري إلى هرتو نحرستو وزارة كرمال كوسا ميسي وزارة عفماتك يو ريد كروس كآية سيرة هذا رأي يقول تأود ذاله وزارة دوي بيسبلاي كريسا وأي كيسا حبس والبا آي آر سي رساس لك بيسميان ويكونان وحكروا سميان إن لا تهابرو ولا سيو إن حرفدي وقفك لأن يدحدو كصبحه هلو تولي مجتمعه حبسه وادي وحبين قفل وسمينيو سي وحو دايو marka waxyaaba wageli doona hadan kiiskan gaar u soo qaadano marxuumkaas marxuum Xuseen uu ahaa dariiqayn u dhintay uu ahaa kormeer ay ku soo sameeyeen 10kii waa sax 10kii bisha ay ahayd in ku jiro maanta waa 3 soo baa Allah uu xasuusto marxuumkaasi marxuum Xuseen uu ahaa 9 jir buu ahaa Allahumma salli ala Muhammad kormeer bay ku soo sameeyeen wasaaradda iyo wasaaradda caafimaadka iyo IRC oo dhakhaatiir international ay yimaadeen way dhamaan soo mareen labada xabsi gaar ahaan ay soo mareen Mandera iyo ay soo mareen kan Hargeysaba xaaladiisa way soo sheegay markaas inay runtii caafimaad u xanuunsanayo warbixinta way gudbiyeen waa ay daweeyeen talada way ka bixiyeen hase yeeshee xanuunkan wuxuu xanuun ku raagay buu ahaa ka imkaas caraboodu wax kale runtii u weheliyeen waxyaaba aanu sheegayno dee qofka hore u soo daashaday oo u khaas ahaana runtii way jireen marxuumka tiisi bay noqotay dhakhtarka markii la keenay dhakhaatiirtu wala tacaaleen waxaan leenahay dee Ilaahay subhanahu wa ta'ala hawla xariisto wasiirka oo fidyanaday goobta ku sugnaa wax ka weydiiyeen waxa uu kala socdo xadhiga wariye Cabdimaalik Muuse Caldoon oo wali ku seexdan mid kamid ah xabsiyada magaalada Hargeysa ayaa sidan ku jawaabay sheegso ku raacsanahay oo in qofka markuu demi galo sa ugu dhaqsaha badan leh waxa jira dambiyada inagu dee mas'uuliyiin qarmalnahay waxa jira dad ku takhasusay baaritaanka arrinkuna halka kaysan baa wax laga yaabaa dambigan oo hayo inay didub kale jirto line buu sii furaa dib baaristu marka waxay u baahataa ee sharciga martaa waa loo kordhiyaa dariiq bay leedahay taasi waa dariiqa sax ah dib garsoor baynu u leenahay waa sax taladana way qaadanayaan insha Allah ta'ala waan ku calaaleynaa inay ku ilaaliyaan kuna xafidaan وفيصل محمد آدم فيصل فيفا تيفيga caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa